السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada channelka soo dhawaada anigoo Asfiya Faarax Bande waxaan halkan idinku soo galay in aan ka hadlo waa maxay fikradda qaldan negative thoughts. fikradda qaldan waa thinking waxa uu kala bixin doona anigoo idin sharaxi doono dhibaatooyinka ee qofka ibn aadam meeshii ka timaado oo next week waxaan u gudagali doonaa insha Allah oo aan aad idinku sharaxi doonaa dhibaatada saameynta ee qofka u geysato laakiin hadda waxaan ka hadli doonaa xagee bay ka yimaadeen waa maxay fikradaha qaldan fikradaha qaldan fikradda hadda ah oo qofka thinkingka maskaxdiisa soo gasha iyo fikraddii hore labada marka midee horeysa sideese qofka ibn aadamka maskaxdiisa ugu dhalataa okay aan u gudagala marka fikradda qaldan haddii aan si aan u fiirino waxay ka timaadaa marka hore qofka marka hore in dhibaato ay soo gaarto dhibaatadaas ay number 1 ay kamid tahay waxaa dhici karta in nolol stressful aad soo martay oo yacni aad u dhib badan waxaa ka dhasha miro waxay dhalisaa dhibaatadaas aad soo martay miro oo maaragtay fikrada qaldan ay maskaxda ku abuurtaa waxaa dhici karta inaad nolol murug leh soo martay oo markaa kugu dhacay taana waxay keentaa again in fikrad qaldan maskaxda ay dhaliso waxaa dhici karta in qof aad waxaadan filanin uu kugu dhaho qof aad kugu dhow qof isku asxaab tihiin qof isku family tihiin qof isla shaqeysaan yani wax aadan ka filanin qof ibn aadan uu hadal kugu dhahay ama uu ku dhibaato uu ku geystay dhibaatada uu ku geystay kadib markii dhibaatada dhacdo fiiriya dhibaatada markay dhacayso fikrad qaldan ma timaado laakiin fikradda qaldan waxay ka timaadaa taas waa waxa ku leeyahay fikradda qaldan waxay ka timaadaa dhibaato markay kugu dhacdo saddexda dhibaato aan soo sheegay murugada waxaadan filanin lagu dhaho stressful oo xaalad aad soo martay saddexdaas ayay ka dhashaan markay ka dhalanayaan marka waa fikrad maaragtay waxay noqonaysaa inay maskaxdaada soo gasho fikrad ah inaad wax si qaldan u aragtid in aad fasiratid in maaragtay maskaxdaadii ay ku haysato ama ay saameyn dhib ku yeelato soo haddaba anu si degan idinkugu sharaxi doona hadduu ilaahay idmo si aad u fahantaan rabaa meeshay waxaan ka yimaadeen iyo dhibaatadoodii waayo aniga waan ku dhex jiraa shaqadan waana arkaa saameynta iyo dhibaatooyinka ay dadka u yeesheen anigoo next week insha Allah ka hadli doono يعني ودبك قفك ابن آدم إنكستو دتك كل دوينهين قفك كل واحد عكرت إن كل دونا شخص يأتكيسي جد إن أوصي كل يلنا أم مسك حد إن كل دوين تاني سو هذا فكرة داخل دن مركب يا مركب أو جلادي أو مسك حد أو سمي مسك حد مركب واحد عا يبتدي وكوجو صود علي أي فكرة قلدن كأبورنتا مركي كسو أبورمنتو وحا أو جلادة أو ماركتي إن أفرة درمد أو دجالولك وأديه waxaa ku taan ku sheegay adiga waxa jir waxaan leenahay qof kasto ibn aadan uu leeyahay ego wax la dhaho yani pride ama pride ma ahani wax ego isla weyni aan ku fasiri karaa egogaas oo qofka soo gala ma aniga yani hebel sidee waxaan u dhihi karaa qofkii wuxuu u dhahay hebel waa wax hore halkii mar ereyga uu ka fakaday ama hadalkii uu kula jeeda ama qof waxa laga yaabaa evil inuu ahaaba qof waxa laga yaabaa inuu negative aha oo dhibaato uu ku geystay oo kale ereygi markuu qofkii uu ku dhahay maskaxdaada markuu qofkiina uu ku dhahay wuu dhaqaaqay maskaxdaada waxa soo galayso sidee qofkan ma cafinay dhibaatada uu ii geystay dada wuxuu ku leeyihiin dad close one oo family ama wax ku sameeyay oo aysan ka filanin oo markii hore ay aad isugu dhawaayeen hal mar maskaxda shoog gashay qofkii markuu wixii uu ka naxay murugo uu ka qaaday fikrad qaldan maskaxdiisa ku bilaabatay kadib wuxuu qofkii intaas fikrada qaldan ku bilaaban niyadii wuxuu iska leeyahay ما عارفين دون هبل يعني سيدا أنا وإيده كرا مرك إيجو والجو شيء وإرجاس سيدا أنا وقف كان صا إيده كرا يعني قف كان مال بويجر دعي وحياة سأده يصير فكرة قلدنا دليان فكرة قلدنا مرك والنوع ولا النوع فكرة وحد صوبته وأكتين every single second كستو دقيقة يعني less than دقيقة كثير وحمس كحدا نسوق شاف فكرة عصب فكرة ذي عصبة نلوجو متلقلين إن كوسي هكذا وإن سيبحان وهير كوكل ويسي سعودان every second ويسي سعودان تن مركا وحا قلدن ملهن الباب يكبحضو وايو وحي الباب وقبحينين نفتيا وحي قشي إيجو إن أيدي تراهد السيدان نلوط ليه كراسيدان إيجو مركا تراهد مقاسين يفرطا مقاسين وحي كفرطا قرياغا بس كحدا وحي قلي سافري ويشا مقعي ويشا qofkii kugu halay ama qofkii kugu sameeyay ama qofkii kugu xadgudbay ama noloshii stressful kaas kugu geystay furay u yeeshaa magacaasi ku xirtaa dan noloshaada haddana wax kale markaa soo martay meesha kugu xirtaa kaama baxdo maxaa kuu soo haray fikradihii wanaagsanaa isku meel kuma wada joogi karaan tan qaldan waxay noqonaysaa meel mugdiya midaan iftiinka isma qaadan karaan way isdhibsanayaan adigii marka maxaa noqonaysaa oo qofkii ahaa
waxaa markii dambe bilaabaysaa in wax walba oo noloshaada ku saabsan oo aan ka duwan wixii dadkaa ku dhaheen oo marka horeba yani productigii meeshu kasoo abuurmay wax ka duwan ah ayaa noloshaada la face garaysay. waxaa dhici karta baabuur inaad baranayso, waxaa dhici karto inaad meel cusub digaysid, waxaa dhici kartid inaad wax baranaysid, waxaa dhici karto inaad nolol cusub samaysanaysid. fikradihii qaldanaa ayaa soo baxay, albaabkas kugu soo garaacay. markay kugu soo garaacaan waxaad bilaabaysaa marka in aadan ku dhaqaaqin, waayo fikradihii qaldanaa ayaa waxay arkeen wax u eg wixii ku dhacay oo maaragta association la ah. adiga istag meesha ku noqonaysa, dib hore uma socon kartid. kadib marka maxaa dhacaya in ay saameyn waxa la yiraahdo haddana negative thinking ka hadlan. fikradihii qaldanaa thinking waa markay socdaan, laakiin thoughts hadda bilaabanaysa. tana raba inaad si fiican u fahantid. fikradda thinking ah waa ta hadda igu dhageysanaysid oo maskaxdaada ay soo galayso wixii aad aniga iga qabsan lahayd, ama aad dhihi lahayd wixii aad iga faa'iidi lahayd, ama wixii aad dhihi lahayd okay bal aan dhuuxo hadalkan iyo gabadhan ku hadlayso, yani waxaan waxay yihiin miyaan soo maray. so su'aalahaas maskaxdaada soo galayo waa wax natural ah, thinking fikrad ah waay. laakiin midda aan hadda kuu sharaxi doono waa waxaa la yirahdaa negative thoughts, fikradihii hore. fikradihii hore marka waa kuwii maqaasiinka ku xirtay oo aad albaabka ku xirtay oo maskaxdaada kugu xareysnaa oo ay kaa hor istaageen ego wax la yiraahdo, oo aniga miyaa qofkan wax igu sameeyay aysan kaa bixin. taa markay soo baxdo waa midda ugu dhibaatada badan oo aan si fiican u sharaxi doono next week hadduu ilaahay idmo. saameynta ay ku yeelato qofka ay geyso depression, ay geyso anxiety, ay geyso qofka inuu marka dambe daawo u qaato oo maaragta tartiib xitaa qofka organkiisa ee dhibaato u geysato, haddana ay usii geysato mentally, maskaxdii ay tired ka dhigto. jirkii iyo maskaxdii waa isla shaqeeyaan. bodiga qofka xitaa uu naaquso inuu diinta maaragtay practice uu sameeyo, in uu maaragtay salaado badan tukado, in uu qur'aan akhriyo, ay ka hor istaagto. maxaa ka hor istaagayo? fikradihii hore oo kugu jiray oo qaldanaa oo aanan ka bixin, oo ego uu ka hor istaagay. why oosan uga bixin? why aysan maaragtay uga bixin? waa number 1 adiga ku xareeyo oo maaragtay naftaada pride u ogolaaday. soo noqodkeeda ay kugu soo noqotay marka waxay kugu saameynaysaa in ay kaa dhibaato kaaga hor keento wixii hadda aad sameynaysay. haddaba yay ku dhacdaa? waxay ku dhacdaa qof kastoo ibni aadana, adiga aniga qof walba negative thoughts-ka uu soo galaa. markuu soo galo mana waxa kado oo qofkii wuxuu bilaabaa inuu maaragta bedelo. waxaana lagu bedelaa waxyaala la yiraahdo positive thoughts. positive thoughts waa fikrado oo ah kuwii hore oo qaldanaa maskaxda soo galay ku bedelaysid. laakiin positive thinking ayaa kasii fiican in qofku u fakiro wax wanaagsan mar kastaba uu ku fakiro. even qof hadduu ku dhibaateeyo uu ku yimaado uu ku yiraahdo waad fool xun tahay, uu ku dhaho hebel meel ma gaaraysid, hebel waad waalan tahay, ama hebel uu ku yiraahdo yani ayaantan maxaasaan la tahay, waxaad ogaataa qofkaas in markaas uu hadalka ku dhahayo in maskaxdiisa ay soo deysay fikrad qaldan. fikradda qaldanna uusan xasuusan karin hadhowdii. laga yaabo inuu xasuusto oo maskaxdiisa ay soo gasho, laakiin waxaan ka wadaa uu sii gudbay oo qofku wuxuu leeyahay levelka uu sii gudbay. laakiin adigii waxaad hakad ku tahay oo aad maaragta u gashay meel oo ugu haysmatay qofka hadalkii uu ku dhahay. waxaa laga yaabaa in 2 sano kugu qaadato. dad waxaa jira qaar oo contact ila sameeyo oo yani dhibaatadaas ay u geysatay 5 sano 4 sano oo ku noolaa yani hebel qaar ka sii badan ilaa dhowr iyo 20 sano, qaar 30 sano, qaar maaragtay 1 year. waxaasoo dhan maxaa keena? in maskaxdaada ego ay kuu furto. egogaas oo ah in aad tiraahdid calaama su'aal aad gelisid, waayo hebel sidee buu ii dhihi karaa? waayo ma dhihi kartid sidee buu ii dhihi karaa? ibni aadanka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu naga abuuray ibni aadan, qalad qofkuu ka dhacaa. ogow inuu qofka xitaa markuu hadal aadan filanin uu ku dhaho oo hadalkaas uu ku dhibaateeyo oo hadhowdii aad kasoo baxdid, waxaa ogaataa hadalkaas laftigeeda inuu dadnimo kaasoo saaro, in aysan dhanka wanaagsan. waxaan kaga hadli doonaa insha allah positive thinking waa wax walboo xumaana lagu dhaho aadan xumaanta u qaadanin oo adiga naftaada ku badbaadinaysid, fikir wanaagsan aad kasoo saartid. meantime waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin, jazakallah khayran. la socda channelkan share gareeya. waxaa laga yaabaa qof u baahan, qof walaalka, qof asxaabtaada la share gareeya, whatsappka u geli, waayo waxyaalaha wanaagsan waa laisla share gareeyaa. waxaa jira dad badan oo aan channelkayga la socdo, waxaa jira dad aan aqoonin oo maanta alxamdulillah ku liibaanay oo su-aashii ee maskaxdooda iska weydiin lahaayeen jawaabtooda halkan ka helay. marka noloshaada ogow, 2 wax ka ilaali. fikradda qaldan markay kusoo gasho
هو قلان إن إيجو وكرباحو مسكح هذا إسوق شو إن آذن ما عرفتي قفكاس السؤال ويديس محو قفكا إيجو جستي أديو قفك أم كلين لك هذا تري هذا ويديسي ما أنا آذن كعفين وين يكون هيسا تاوا مركمد نيجاتيف ثوتس كذا لسه فكرة ده صور نقطة. السلام عليكم.